السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا غيرت يوتيوب سلامي عشان كان عاوز أقول زي سيدا USB أو نقول شو بلاين ويندو 10. USB ga marka window 10 ku shubatid waxa soo jira 32 bit iyo 64 bit. أنا DVD ga najabka lagu ma qaadi karo meel kasta ma qaadi kartid. USB ga markasta wada kartaa adigu USB ku qaadanaysid device back solution ka oo computerkaaga updating si fiican kugu sameeynaya meel kasta aad joogtid window ka bedeli kartid internet la'aan computerkaasna aday si fiican wax ugu qabat. marka aan bilaawno sida USB gaaga aad ugu shubi lahayd kadibna browser gaaga furkaada waxa ku qortaa rufus ku qor RUFUS kadibna linkiga hore ku dhufo kadib waxa ku soo baxay browserka hoos u soo dag kadib waxa soo download gareysaa last updating oo 2.6 marka last update waa la soo degtaa kadibna waa 800 iyo 50 kilobyte way download kadibna downloadka wax badan kama qaadanayo aad ayuu fudud yahay kadib marka download ku dhameeyo waxa laga baahan yahay programka fur aad click open computer tag SPCI ku tag kadibna USB gaaga soo fiiri noocu yahay marka noocu fiirisid waxa laga baahan yahay aad tagtid right click si aad u ogaatid noocu yahay properties tag waxa meesha system file ka waxa ka fiirinaysaa NTFS USB gana inta sidaas ahada USB ujeeda system file ka waa inuu ahaado FAT32 yahay waa ina FAT32 dooratid hadii uu yahay labada dhan waa isku magac ahaadaan kadibna waxaad helaysaa browserkaaga tag meesha ISO-ga marka aniga desktop-ka danu yaala san waa kana laakiin desktop-ka nu yaala fiirino desktop-ka jaga saar waa kasa sidaan kugu soo baxaya kadibna waxaa leedahay open marka failka meesha ku yaal soo qaadaysaa start kadibna wuxuu bilaabaa inuu failka masaxo USB ku jiro oo titiro kadibna okay wax yar ay qaadanaysaa laakiin waqtigu soo gaabanay kadibna iska soo xir marka waxaan ku tusaa computerka ayaan dib u daminaa sida aad u aragtaan in USB ga shaqeynayo in kale marka waa kana computerka dib ayaan u soo shidnay waxa taabanaysaa delete setup kaaga sa u galaysa BIOS kadib waxa tagaysaa advance BIOS ayaa tagaysaa waxa saad BIOS afartaga kugu taabtay kadib BIOS marka dooratid enter ayaa leedahay marka inta dhacdo waxa tagaysaa first boot ayaa tagaysaa enter ayaa leedahay waxaad ka soo dooranaysaa USB noocu yahay USB HF kadibna enter kadibna F10 to save F10 hoos ayay ugu talaa taasa F10 si aad u save gareysid F10 kadibna enter ayaa lagaga baahiyaa inaan dhahay kadib computerka dib isku soo daara hadii uu saas ugu soo kay waayo talabaad taabanaysa waxay lahayd dariiqa labaad waxa leedahay F2 alif riix hadii uu ku soo qaado USB ga marka leh hadana F2 alif kadib waa ujeeda BIOS menu ga isa baxay F2 alif marka riixo wuxuu soo saaraa screen yar oo cad sidana igu soo baxa select BIOS oo dhahay hard disk ga ayaan tagaa markaan ku dhufto waxa soo baxaya USB flash ga flash kan ku dhufanaa kadibna markuu soo kaco wuxuu ku leeyahay any key taabo ana keyboard kaaga meel un ka taabo marka ka taabatid isla markiiba USB ayaa soo qaatay window-gana sidaas ayuu kugu soo kacaya markaan sugno window-ga noocu yahay si aan u hubino waxaan u sameynaa ardayga si fiican inuu fahmo soo shaki u galin waa kana window 10 oo soo jiro 32 bit iyo 64 bit marka hadaan 32 bit doorano keen 32 bit waa kadibna waa kasa marka sidaas ayuu kugu sameynayaa failka in oo load sameeyo window sameeyo ku shaqeynaa ujeeda marka insha Allah bidna kaniin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen casharkan insha Allah bidna kaniin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا.